howlaha wasaaradda ay si toos runtii ay loo dardargeliyo intii la awoodi karo dadka aqoonta u leh shidaalka inay qiimeyn ku soo sameeyaan meelaha shidaalka lagu gado iyo sida uu yahay sidaan ognahay shidaalka mamnuuc wayaan in meel bulshaweynta ama bulshada ay dhaxdeeda in lagu gado mamnuuc waa sida caadiga ah burburkii iyo rafaadkii iyo dowladlaantii kadib dadku waxay noqdeen shidaalku meel walba iska gadi karaan hadda dii wadanku ay dowlad runtii goboled Jubbaland ay ka jirto waxaan rabnaa in barnaamijyadaas wax badan laga qabto wasaaraddu shaqadeeda ay iyada runtii raadsato ay wax ka qabato shidaaladaas wacyigelin badan ay ka bixiso dadka khibrada u leh tilmaamaha ay bixinayaan oo ay ka mid tahay shidaalka oo kale in lagu gado meel ka baxsan magaalada haddii laga fursan waayana ay noqoto meel gaar ah oo xadidan oo looga talagalay in shidaalka lagu iibiyo oo waxyaalaha digniinta ay runtii wasaaradda ka bixinayso haddana aan isdhihi karo waxaan soo samayn doonaa qiimeyn ku saabsan barnaamijyada ku saabsan shaqooyinka hadda aan ka hadalin gaaraan shidaalkaas sidoo kale biyaha waxaan ognahay magaalada sida biyo la'aanta u tahay wasaaraddu waxay qorsheynaysay sidii loo heli lahaa runtii shirkadda ama hay'ad ka caawisa dhanka biyaha runtii oo populationka ku nool gaaraan Kismaayo taasna waan ku gudu jirnaa mar dhow insha Allah taala waxaan ka heli doonaa jawaab ku saabsan arintaas waxaan rajaynaynaa biyo macaan oo dadku ay ku quweystaan ay wax ku karsadaan oo si fiican u isticmaalaan rajada ay dadaalada aan wadno in la heli doono insha Allah waxaan ognahay qofka ku nool magaalada biyo laba nooc oo kala isticmaala biyo dhanaan oo la yiraahdo alaabta lagu dhaqdhaqay iyo musqusha lagu gali iyo kuwa leeyahay macaan waayo saabuuntay u rooyihiin ama waa lagu qubeysan karaa ama ganacsaasha lagu karsan karaa oo kale waxaan rajaynaynaa goorlo insha Allah inaan ka gudbi doono aan heli doono biyo isku mid ah insha Allah taala guri walbana uu heli doono biyahaas oo dhan walba uu isticmaali doono waa howlaha aan ku mashquulsanahay ama hadda aan ku jirno qaybta shidaalka waan ka hadalnay taxdiir badan in laga muujiyo dadku aysan fiirin runtii lacag la fiirino sida aan sheegayna tilmaamada ay wasaaradda bixinayso oo meelaha cayuman oo gaarka in lagu gado shidaalka si guud sida aan sheegayna hadii magaalada looga maarin waayo naftigeeda waxa uu leedahay in meel gaar oo looga talagalay waxaan ognahay kaalamada shidaalka hore oo markaas asaasan ka wadnaa meel gaar markaan leenahay meelaha jirta looga talagalay oo kaalamada shidaalka oo kale lagu weynooliyay wana shaqeeyada dib loo qalabay meelaha qaarkood waxaan ognahay in ay gubin jireen sida umultory oo kale meelo badan oo shidaal la kor ay guteen oo rafaad badan ay burbur badan ay qasaare badan geysteen waxyaala laga digay taas oo kala kamid ah insha Allah taala biyaha waxaan rabnaa in insha Allah baaq gaar u dirno hay'adaha ku shaqo leh in ay ceelaha ka qodqodaan sida xarumaha qaxootiga meelaha gaarka kala inta ay runtii barnaamijka galin ee wasaaradda la soo xiriiraan si looga caawiyo meelaha laga qodi kara ceelka iyo musqushi xagee isu jiraan xagee la sugeen xagee mudan yihiin in ceelka laga qodo maqam mitir isu jirsan karaan taas waxaan isleeyahay wasaaradda laga helayaa dadka ka caawinaya oo aqoonta u leh qaybta biyaha waxaan isleeyahay idana in dadkaas ku leh shaqada ama bulshooyinka raba inay ka caawiyaan biyaha oo kale gaaraan hay'adaha dhowr jeerman u sheegnay aan uma buuxinin ama howlaha iyo shaqooyinka aan farnay laakiin waxaan rajaynaynaa inay wax ku fahmi doonaan amarada aan bixinayno oo aan leenahay la soo xiriiraan wasaaradda si ay uga caawiso barnaamijyada aan ka hadlayno kale iyo dhibaatooyinka ay keeni karaan in musqushi iyo biyaha ceelka la iska aqodo dhibta ay keeni karto si looga hortago dhanka korontada insha Allah taala waxaan leenahay korontada waan ognahay iyadana ma nadaamsano wixii hadda ka horeeyay laakiin qorshooyinka iyo runtii wasaaraddu ku dadaalayso waxa kamid ah si loo nadaamin lahaa barnaamijka korontada hadii aan wax ka taabano qasaaraha ay leedahay ama tilmaamaha laga bixinayo in laga joojiyo waxa kamid ah goobaha iskuulada oo kale inaan la dhigin centerka macnaha ama meesha laga control korontada inaan laga dhigin goobaha iskuulada oo kale sababtoo ah weeyaan iskuulka caruurtii iyo dadkii wixii hadii mar wax dhacaan waxa weeyaan dhibkeeda badan sidoo kale masaajidada oo kale waxa laga digayaa in centerka ama meesha laga control si loo yaqaanaba maxay to korontada biyaha in maxay to laga dhigo meel gaar ah oo banaan oo hadii wax dhacaan dhibkeeda u yaraanayo masaajidada oo kale waxaan leenahay waxaan ka digaynaa in laga ilaaliyo sidoo kale meelaha dadka u badan yihiin ee isku iimaanayaan oo kale waa muhiim iyadana in laga ilaaliyo dadka shaqooyinka kule korontoyinka waxaan faraynaa in goobaha aan tilmaanay ay ka taxtiraan ay ka dugtaan waxa kale mamnuuc ah in maxay aheeto waxa kale mamnuuc ah
in ma garanaysaa barnaamijkan birta laga joojiyo korontada ama loo isticmaalin waan weydiinay qolooyin korontada waxay noo sheegeen inay jirto baal dhagax oo ay ka xijiyaan birta laakiin waxa la tilmaamayaa ragga khibrada u leh barnaamijka ay tilmaamayaan in birta ay jabi karto naftigeeda ay jabi karto toosna marka dibka u gudbi karo dib badan uu keen karo gaar ahaan xilliyada roobabka biyaha baashaas dhacdo ay ku dhacdo biyaha dhan waxay noqonayaan koronto waxa kale oo looga digayaa meelaha ay ka soo gaaban tahay korontada oo ama ay ka dumeen fiilooyinka ama maxay tiirasha la saarayo inay dumaan kadib aan dib loo habeyn oo aad ku maraysid meelo badan korontiyo dunsan oo daasan dhulkii ku dhow taana marka waxay khatar u tahay inay fiiqanto inay dadka dhibaato geliso waxaa kaloo laga digayaa korontada toos ugu soo baxayso waxyaabaha iyo xaggan Somali Star iyo dhankaas marayso in barnaamijkaasi korontada fiiqan oo ama tooska adabka tooska ah meelaha ay ku haboon tahay la marsiyo oo aad loo ilaaliyo dhanka korontada kale waxa soo haray bi'ado kale markaan ka hadlayno waxa kamid ah waxaan ognahay in dhagax laga soo guro ama bulkeeti loo yaqaano ama dhulka laga soo shido nuurad loo yaqaan waxa soo dhan waxa weeyaan waa barnaamijka la doonayo ee beeyada shaqada ku leedahay wasaaradda oo loo baahan in before aan cid walbana ay fahanto shaqooyinka inay wasaaradda leedahay ila laga soo xiriiro wasaaradda si looga caawiyo ama tilmaam looga bixiyo barnaamijyadaas oo kale looga bixiyo si aad runtii waxa sidii karaado kale magaalada waxa laga sameeyaa waa la qodayaa kale fiilooyin aan gudaha la gelinayaa iyadoo aan la soo socodsiin wasaaradda arintaana sax ma aha maxaa yeelay waxa loo baahan yahay in talaabo kasta oo wasaaraddu ay shaqo ku leedahay la qaadayo si looga caawiyo inay la soo xiriirto waxaana kamid ah tilmaamooyinka hadda aan bilaabayno oo kale aan tilmaamayno hadda aan ka hadlayno oo kale waxaan u sheegaynaa maanta oo aan bulshada la socodsiinaa ama dadka shaqooyinka barnaamijyada shaqada ku leh inay ogaadaan xogta ay helaan shaqadana meesha ay leedahay si markaas dadku u fahmaan una yimaadaan xafiiska wasaaradda qaybaheeda kala duwan waxaan kaloo insha Allah taala dadgelin doonaa in shaqaaluhu ay control badan iyo qiimeyn ku soo sameeyaan sida ceelasha hadda biyaha iyo magaalada oo kale dib badan oo kala badan ay jirto dadku ay caawanayaan korontada saas oo kale dadku waxay ka caawanayaan in korontadu ay qaali tahay ama si aad u socoto kullu ma howlahaas oo dhan waxaan ku amarnay shaqaalaha sida voluntary ama aqoon oo shaqay wasaaradda aqoontana u leh inay noo keenaan insha Allah warbixin kooban oo dhab ah si marka istiraatiijiyada dhab ay dawladdu u qaadato ama wasaaraddu ay runtii ugu sameeyso waxaan ognahay goobo hadda korontada oo kale meesha ay degan tahay kulli waxa weeyaan dawladda iskale sidaan ognahay wada hadal badan noo socdo insha Allah taala sidii barnaamijka loo xakameeyo ama wax la iskaga ogaan lahayn waxaan rabnaa inaan markii insha Allah message-keena uu ku wajahan dadku inay fahmaan shaqooyinka aan sheegnay oo dhan in wasaaraddan ay hoos yimaadaan